waxaan daawadayaal saraakiil iyo wafdi xoogan oo Soomaaliland ka socda ayaa si qarsoodi ah ugu sugan dalka Itoobiya maxay kala hadlayaan Abiy Ahmed sidoo kale Itoobiya maxay uga aamustay aqoonsiga Soomaaliland iyo sidoo kale halka ay ka taagan tahay aqoonsiga Soomaaliland iyo midnimada dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro la filayo in maalmaha soo socda uu gaaro dalkaasi Israa'iil kulan xasaasi ah oo la qaato Benjamin Netanyahu qodobada ay kuwa kale oo faahfaahsan barnaamijkeena intuu socdo ayaad kaga bogo doontaan fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka Amiir Suleymaan subscribe ugu cimaamad maqaalka like saar share gare oo la wadaag saaxiibadaada mahadsan daawade waa tahay daawadayaal 26 bishii December ee sanada 2026 waxaa Israa'iil ay si rasmi ah u aqoonsatay Soomaaliland inay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale sidoo kale Soomaaliland ay tahay jamhuuriyad madax bannaan hase ahaatee casuumaad rasmi ah ayaa madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa uu ka helay Benjamin Netanyahu halkaas oo la filayo in maalmaha soo socda uu tago Tel Aviv sidoo kalena uu booqdo Qudus halkaas oo u ah Soomaaliland taariikhi in ay la kulmayso dal markii ugu horeysay dal ahaan u qaabilo oo ay u tahay jamhuuriyad madax bannaan maadaama Soomaaliland ay hore dhowr iyo 30 sano u aqoonsaneen dalal kale dhinaca kale Soomaaliland wafdi xoogan oo ka socda ayaa ku sugan Itoobiya halkaas oo ay kulan xasaasi ah la qaadanayaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu kulankan oo qarsoodi ah sidoo kale aan hore loo shaacinin lana qarinayo ayaa wafuuda ka socota Soomaaliland waxa ay shir hoosaad la leeyihiin Itoobiya iyo in aqoonsi rasmi ah ay ka helaan Itoobiya oo ka aamustay sidoo kalena iska dhiga tirtay hadalada iyo sidoo kale mandaqada geeska Afrika xaaladaha ku soo koray aqoonsiga Soomaaliland ee si rasmi ah loo la faguray ilaa iyo qaramada midooba tagay iyadoo dalal kale oo badan oo Afrikaan ay si rasmi ah u garab istaageen madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hase ahaatee Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka ka aamusay sidoo kalena gabi ahaanba aan ka hadlin aqoonsiga Soomaaliland iyadoo la og yahay Itoobiya in ay koodii bishii Janaayo sanadii 2024 madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu la saxiixday heshiis badeed oo dhigayay in xeebaha Lughaya ilaa iyo 20 kiiloomitir oo isku weer ay hesho Itoobiya sidoo kalena ay ka samaysato dekad iyo sidoo kale saldhig military oo ay ku yeelato Soomaaliland arrintan oo ay dawladda federaalka Soomaaliya si cad u hor istaagtay sidoo kalena banaabaxyo ballaaran ay gilgileen dhammaan gayiga Soomaaliya iyadoo taasi looga hortagay in Itoobiya ay heshiiskaasi fuliso iyadoo muddo sanad gaarayso xiriirka dawladda federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya uu si rasmi ah u xumaaday sidoo kale calaaqaadkoodii uu noqday mid go'ay hase ahaatee ay sanad dib loo soo cusboonaysay iyadoo Itoobiya ay u muuqatay inkastoo ay si rasmi ah u sheegin inay ka tanaasushay sidoo kalena ay baabi'isay heshiiskaasi ay sanadii 2024 la saxiixatay Soomaaliland hase ahaatee ma jirin wax talaabo oo degdeg ay u qaaday ama hore ay u qaaday oo ku aadan xeebaha Soomaaliya ama sidoo kale heshiiskaasi Soomaaliland ee dhigayay in ay bad ka hesho xeebaha Saylac iyo Lughaya ee Soomaaliland hase ahaatee haatan mar kale Soomaaliland oo aqoonsi ka heshay maamulka Israa'iil sidoo kale Benjamin Netanyahu oo si rasmi ah u aqoonsaday in Soomaaliland ay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale iyagoo difaacay sababaha ay u aqoonsadeen midnimada iyo sidoo kale dimuqraadinimada iyo sidoo kale doorashooyinka xor iyo xalaalka nabadda xasiloonida siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliland darteedna ay u aqoonsadeen ayaa dhinaca kale waxaa ka mid ahaa dalalka ka aamusay amba ka hadlin dawladaha Kenya iyo Itoobiya oo Soomaaliya xiriir iyo calaaqaad dhow leh sidoo kalena ay ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya iyagoo ka aamusay gabi ahaanba arrimahan iyo habka ay u dhacayaan sidoo kalena aanba ka hadlin soona hadal qaadan iyadoo qaramada midoobay kulanka maalintii Isniintii la soo dhaafay ee ku saabsanaa ajandaha Soomaaliland iyo Soomaaliya looga hadlayay ay guud ahaanba ka aamuseen dalalkaasi iyadoo dalal ay ku jirto South Africa ay si rasmi ah u difaaceen qarannimada Soomaaliyeed in Soomaaliya ay tahay hal sidoo kalena gumaystaha uu ka dhigin iyo gumaystaha Soomaaliya ay ahayd markii gumaysanay hal qura iyadoo Soomaaliland ay sheegeen in tabashada ay qabto ay ka jirto dhinaca Muqdisho in isla soo xaliyaan iyaga balse ay damada shisheeye sida Israa'iil ay u aqoonsatay oo kale ay wax fursada ama boos uga banaaneen hase ahaatee Soomaaliland ayaa aqoonsigan ay heshay waxa uu horseeday in markii ugu horeysay qaramada midoobay si rasmi ah looga hadlo arrimaha Soomaaliland sidoo kale looga faalooda arrimaha Soomaaliland guud ahaanba iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland
booqasho rasmi ah markii ugu horeysay inkastoo markii 2 bilood ka hor uu tagay sidoo kalena shir iyo kulan xasaasi ah uu la qaatay Benjamin Netanyahu ay sababtay in 2 bilood kadib Somaliland aqoonsi rasmi ah ay ka heshay iyadoo dhinaca kalena ay tageen wafdi ka socday oo u badnaa warbaahin Somaliland sidoo kan la arkay muuqaalo baraha bulshada ay ku baahiyeen oo ku aadan in ay Somaliland iyo sidoo kale Israa'iil ay yihiin wadamo walaalaha isna dhaxgalay si kastaba ahaatee isku soo wada duubo Somaliland ayaa haatan waxa ay u muuqdaa ififaale ka duwan kan u muuqda geeska Afrika ama dadka dhaliilo iyadoo sheegtay in aqoonsigii uu yahay mid iyada cagta saartay ififaale buuxana uu ifayo maadaama Israa'iil ay u jeexday dhabahaasi wadamo kale iyadoo sheegay madaxweynaha Somaliland in dhawaan la filayo in wadamo kale ay aqoonsadaan si rasmi ah Somaliland ay ugu dhawaaqaan in ay tahay jamhuuriyad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale waa tahay daawadayaal haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqatay janaalkay fadlan subscribe isaar muuqaalka like saar share garay gaarsii saaxiibadaada mahadsanid daawade